runahaantii maanta jawiga halkaan aan ku arkay diilada ka muuqata saynraynta adkaysiga duruufaha ay shaqaalaha warbaahinta ka shaqeeyaan iyo sida loo soo dhoway nolosha halkan ka muuqata waa mid ka turjumaysa guud ahaan dadka meesha ka shaqeeya hadafkooda iyo himiladooda iyo hogaankii halkan sii joogay iyo waxay qabteen aad baan idinku mahadcelinayaa iskuma cusbin ragga iyo hablaha halkan ka shaqeeya waayo fara badan baan soo wada shaqeynay waxaa hadda ugu fududayd oo aan soo qaadan kara hadda markaan soo gelay inamada warbaahinta ee wasaaradda ku socda nala shaqeynaya minidna kor bay joogaan dabaqa afraad minidka dambana hoos baa laga raba iyagoo intaasoo mashiin iyo qalab iyo aadasita run ahaantii sida wasiirku uu sheegay kama dhacaan askarta aagga hore fadhiya ee xalay u hoyday ee cadowga hortaagay waxaynu ogsoonnahay in raggii iyo hablihii hogaaminayay waxyaha kala duwan ee wasaaraddan ay qaarna naftooda u horaan qaarna ay isbitaalka ku jiraan ma mooganin doorka insha allahu tacaala dowladduna mudnaan bay sii doontaa daryeelka muwaadiniinta iyo mas-uuliyiinta nafta loo horay intii dhimatayna rabbi jannada ka waraab intaa ka sokow waxaan u malaynayaa dee mar haddii cismaan dubeed iyo daa-uud aweys ay rabaan oo raggii warbaahintan ka soo shaqeeyeen hadal badani imo oo aftahanadooda nimay cismaan dubeed horta magaca miskiin kama hadalii maamaadaas dhowrkii cishuu joogay horta ma muuqan waayo lagu haman maayo ama maalintii hadda waa ama safarka hadda waa qaar badan baa waxay yidhaahdaan war odayg waxaan ka dhawaadsanay shoowanin biyaha uu sharaxay dhexda ku jiro intaad qaatayna inuu qaybiyo laakiin wuxuu yidhi weli waa ka nool wuxuu yidhi abidkayda meel lagu jabaan jaqila wey waa ka nooli saaxiibkay shalay baa wasaaradda shaqada markaan si u kala wareejinayna baa xaway kafkani ka dhacdo cabdiwahaab ogaas oo wasiirkii shaqada iyo shaqaalaha baa ninkii soo gelaya wasiir bixi ula qabtay ma u tiiray meeshan wasiirka ra-iisul wasaare ku-xigeen baa laga noqda oo isna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalku ahaa anna anigii ka soo qabo halka marka wasiir cismaan waxaan leeyahay in warfaafinta hadday ugu yar tahay madaxweyne ku-xigeenna waa laga noqdaa madaxweyne waa laga noqdaa oo cabdiqaasim iyo ismaaciil cali abuukar baa halkan ay ka arrimi jireen horta niyadda khayr u tahay intaa ka sokow mar dhaweyd baan nala kabtamayo wuxuu yidhi wasaaraddan sideeda waxay jirtaa malaha 60 iyo dhowr sano oo horta dhowr iyo 20 wiil reer burca ka talimay waxaan malaya labadii sano u dambaysa oo ugu kurolaada marka saaxiibkay horta guul baan u rajeynayna run ahaantii waa abwaan waa bare waa siyaasi waa analyste خبير خارجية السياسة بعد ورباهين تعليم تقدر من علاقات بلادنا اليومية ومالك ودهان أنا نرجع لنا هاي أغلب كسر دوم صوّد لكن إلى هو كان جالس بالبلد بالبنية اسمه هم مالني إنه دوام وهوي ضد قوانين ما هم بقصة مر أورني ثانا هو waxaa kaloo dee isna halkan fadhiyaa cadaala oo aan cismaan waxba ka howliray isagu halkiisii uu ka gacan bartay hawsha ayuu kaga jiraa waa nin in badan u soo samray inuu warbaahinta ka shaqeeyo firfircoon run ahaantii iyo didilo badan ku jirto isna howlo adag uu ka soo shaqeeyo beriga dhawada xilliyada kala guurka howlo adagna waa yeelaa rag adagna waa loo baahaya markaa ragga adag ayuu ka mid ahaa waa nin aad u feejigan u firfircoon aqoon badan u leh siyaasadda iyo warbaahintaba saaxiibka waxaan markale ku soo dhawow meeshii aad wax badan ka soo qabatay adoo agaasimo ah iyo adoo wasiir ku-xigeenba waxaa isna meesha fadhiya cabdullaahi xayir oday soomaaliyeed weeye
in badan dowladnimada aniga iyo cismaan iyo dhawaan baanu soo dhacnay sidii qolooyinka maxaa loola jug soo dhacay isagu duruufo adag buu ku soo shaqeeyey oo wuxuu la mid yahay ragga iyo hablaha halkan 20 sano u dambeeyey dowladnimada oo kobcaysa oo koraysa oo aan mataqaana aad u arkayn la soo baaxaadaya la soo kufaakacay odayaashana laga warqaban leedahay halkaa waxaan ka arkaa wanshure cabdinaasir rag fara badan iyo hablo fara badan ayaan ka arkaa markaa isagu qaybta maamulka iyo agaasinka hormuudiyey waana nin wax badan dowladnimada usoo horay isna waa mahadcelinaynaa mahadnaqaa ka sokow waxaan si weyn usoo dhaweynayaa saaxiibkay daawud aweys oo warbaahinta caalamiga iyo dadalkaba ka soo shaqeeyey nin aad u aqoon badan oo degan ah waxaan u malaynayaa halkii cisman uu idin buuxin doonaa waa laga yaabaa inaan barka soo toosin oo aan qaybo ku dhufan laakiin barka daliilo way ku kalifayaan xogay doorka wasaaradda aynu kan raahno wasaaradani waa wasaaradda la rabo in la dhex marsiiyo waxqabad iyo yoolalka waaweyn ee xukuumaddan ay halgaarka ka hayaan amniga waa arrinta u weyn ee madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ka dhawaashay inay priority tahay laakiin wasaaraddani waa xididadii dhex marayey dhammaan wasaaradaha kale ee waxaa lagu soo halkaa diyaariyo ee laga soo shaqeeyo gaadhsiinaysay dadweynaha soomaaliyeed iyo caalamka waa wasaaraddii aynu oran karno hormuud bay u ahayd yeegleelidda dowladnimada soomaaliyeed laga soo bilaabo ilaa xilligii gobonnimada la hadlay dadka soomaaliyeed dunta isku xidhay ee midnimadooda iyo himiladooda iyo taariikhdoodaba dhintaysta waxay ahayd wasaaradda ama ha noqoto heesihii ka hadlayay dadka soomaaliyeed oo ka bixi jiray idaacadaha marka uu yamiim lahaa soomaali baan ahay sanku neeflan u ogolin marna inuu iga sarrayn karo iyo cali sugule markii uu lahaa aan maalin hashayna mandeel iyo qarshe iyo raggaa qolooyinkiga reer waqooyiga xagga suugaanta waanu yaro tirsanay oo xogay abwaannimada xataa waa ogtihiin oo waa ku sheegaya ninka la yidhaahdo wasiir cismaan dube iyo cabdulwahaab israawil iyo raggii suugaanta meesha ergeeyey say uga warrameen waayihii kala duwanaa gabay suugaan buurow shir waxaan soo xasuustaa gabayadii ka bixi jiray caanka ahaa gabayga hadraawi ee la yidhaahdo bah uu leeyahay baariis adoon tegin ama qoon ka sheekayn adoon badaha waaweyn nafta aan ku diimayn barashada dalkaagaa hota laga bogtayo wuxuu yidhi dhulku baa xasooriyo ilan dhaqankii baynu ku jiray hidiyo dhaqanka iyo dalxiiskii wuxuu yidhi dhulku baa xasooriyo bannaan miro weeyaan ama waa busiyo xoon midka buug ku haysto beyntaada weeyaan balca jowhar shalambood barkadaha qoryooley ilaa iyo halkaasuu jamamuu ka gelayaa iyo wajaalu leeyahay nimcooyinkaasaydan warbaahintu xilliyada dagaalka la geliyey iyo xilliga nabadda iyo xilliga asoomaaliga la qorayey iyo xilliga bacadcelinta la samaynayey xilli walba dowrweyn bay ka soo qaadata xilliyada colaadana military bay ka qaadataa waanu ogsoonahay markaa ahamiyadda ay wasaaradda ugu jirto dowladnimada waxaa intaa kasii muhiimsan waxaa kasii baxaya soona gelaya rag khibradda arrinta hore insha allahu tacaala xukuumaddani mudnaantiina idin siin doontaa waa laga yaabaa dowladdu inay xagga dhaqaalaha awood badan ay lahayd laakiin niyad ahaan iyo ficil ahaan iyo mabda ahaanba wax walboo la awoodo waa laydinka istaagi doona waxaan intaa kaga baxaya dalal fara badan baa waxay leeyihiin warbaahin qaranka uu leeyahay macnaheedu ma aha in ay dowladdii warkeeda mar walba garab taagan tahay macnaheedu waxa weeye dowladdu wararka ka soo baxaya warbaahinta qaranku waa inay ahaadaan kuwa dheelita xaqiiqada ku dhisan runta u sheega dowladda iyo dadka iyo adduunkaba waxaan daraya
تلفزيون كقرن يوربهين تكلم قرن كوا إنت يلو أكبر مقام وضعت كثيرا هذا كثيرا أي كبرين تبيرها إسكامي من أبينا دلال بيتو هبني من السوجي برنامجي على السودا يعني أقول قرب على كويس سيدنا قرب على الموسيقى دلال نواسي سعانية سوى الشارع بين قرن كوالينا آدي أتمنى بمهر علينا تجي هذه تهري قليل حنا سود وين يوتعيني هو رسول بقى رسول الصقري ولي يقبل نمو أي نقول هذا